dhalinyaro kusoo dhawaada cashirkeennii shanaad ee Introduction to Cybersecurity. maanta waxaynu qaadaynaa cashir xiiso badan waana habka iyo siyaabaha loo dhex galo sistamada. Practical maahan laakiin waa sharaxaad iyo si guud waxay yihiin. Habka loo dhex galo sistamadu way badan yihiin, waxayna kasoo qaadan doonaa kuwa ugu caansan. haddii aad xasuusato cashirkeennii labaad waxaynu kusoo aragnay waxa loo yaqaano social engineering. Social engineering waa mid ka mid ah habka ugu waaweyn ee loo dhex galo sistamada. in hackerska xuni soo dhex galaan systemka waxaa kaliya ka xigta in ay bedelaan maskaxda qof haya passwordada ama accesska lagu gelayo systemka. markasta waxaa muhiim ah in haddii aad tahay cybersecurity professional aad ka warhayso shaqaalaha haya passwordada inay yihiin kuwa si fudud loo gaadi karo iyo in kale oo ay yihiin kasoo jeeda. qaabka labaad waxa uu yahay DOS attack, waana mid ka mid ah qaabka ugu caansan uguna fudud ee loo dhex galo sistamada. DOS attack ama denial of service attack waxa uu sameynayaa inuu jahwareeriyo networka isagoo ka xanibaya inay isticmaalaan dadkii loogu talagalay serviceka. kasoo qaad hudheel aad soo gashay oo meel kasta buuxdo balse dadka fadhiya aanay hayn dad wax dalbanaya oo wax cunaya oo keliya ta buuxinayaan meesha. saasoo kale ayuu dhacayaa DOS attacku oo waxa uu soo kala dhexgelayaa userkii iyo website-kii uu socday. haddaba DOS attack waxa uu fariimo aad u tiro badan iyo codsiyo u dirayaa website-ka ama serverka ilaa uu serverku xamili waayo oo crash noqdo. marka si fudud waxaad u fahantaa hudheelka la buuxo ee idin aysan waxba dalbanayn. qaabka saddexaad waxaa lagu magacaabaa man in the middle. sida ka muuqata magaca man in the middle oo noqonaysa ninka dhexda taagan, waa nooc ka mid ah habka loo dhex galo sistamada kaasoo ay hackersku istaagayaan dhexda qofka isticmaalaya adeega iyo serverka. sidan oo kale wuxuuna kharibayaa oo isku dayayaa inuu xado xogta dhex maraysa labada dhinac. qaabka afraad waxaa lagu magacaabaa CEO poisoning oo aynu wax kaga soo tilmaamnay cashirkeennii afraad. haddaba CEO ama Search Engine Optimization waa qaab ay adeegsadaan search enginesku sida Google kaasoo websiteska u kala horaysiinaya sida u kala hayaan xogtaad rabto. tusaale ahaan markaad wax search dhahdo markii wax kuu soo baxo website ka hadlaya waxaad rabto, haddii aad hoos u sii socoto marba waxaad arkaysaa in websiteska hoose ay ka hadlayaan mowduucyo ka baxsan kaagii. marka si aad markiiba u hesho xogtaad raadinaysay waxaa la isticmaalaya wax loo yaqaano CEO si loo soo hormariyo websiteska haya xogta aad rabto. intaa misla fahanay, haddaba hackerska xuni waxa ay ka faa'iideysanayaan qaabkan iyagoo soo horumaraya website-ka khariban oo haddii aad gasho laga yaabo inay malware iska soo raacaan sida aan lagu soo dhex galo systemkaagii. qaabka shanaad waa botnet oo dhaca markaad booqato website aan safe ahayn, waxaana u dhacayaa qaab ah in kombiyuutarkaaga lala wareego uu ka mid noqdo wax loo yaqaano botnet. si fudud aan kuu sheego, waad aragtay filmada zombiga ah, soo haddii qof caadi ah zombi uu qaniino isna soo zombi noqon maayo. saasoo kale haddii botnet aad ku dhacdo waxa uu kombiyuutarkaagu noqonayaa sidii zombiga oo kale, waxaana kombiyuutarkaaga loo adeegsanaya in lagu fuliyo DOS attack kii aynu hore u soo marnay kaasoo lagu jaamgaraynaya trafficka websiteska ama serverka. qaabka lixaad waa password jabinta. password jabintu waa hab in badan soo jiray kaasoo ah in lagu baaro passwordka saxda ah, waxaana jira qaabo badan oo lagu baaro, waxaana ka mid ah waxa loo yaqaano password spraying oo ah in lagu baaro passwordska caanka ah sida 1234 iyo waxyaabahaasoo kale. marka adkee passwordkaaga markastana ku dadaal inuu noqdo mid aan la qiyaasi karayn. sidoo kale waxaa jira hab loo yaqaano brute force attack oo ah in hackerska xun ay ku baarhaan password kasta iyo erey kasta oo suuro ah, yacni wax kasta oo password noqon kara way ku baarayaan. processkan waxuu qaataa waqti aad u badan waana mid caajis ah. hababka loo dhex galo sistamadu way ka badan yihiin intan, balse kuwan ayaa ah kuwa ugu caansan. muuqaalkan maanta intaas ayuu ku eegyahay. waxaan rajaynayaa inuu isla fahanay waxyaabahaas aan ku soo hadalnay. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. wassalaamu calaykum.